isbuucii la soo dhaafay $100 baa lagu kala iibsanay halkii xabo anigu wiil waxaan garanayaa kun xabo haystay uu shiiday halkii xabo $120 bay ka siisteen kuwa qof kasta oo dhalinyaro ah oo aan u furay cryptocurrency-ga cusub ee dunida ku soo biiri doona 2025 ee loo yaqaan Pi Network lana sameeyay sanadii 2019 baa la generate gareeyay Pi Network wuxuu bedeli doonaa cryptocurrency-yadan hadda jira wax fara badan ka bedeli doona waa currency cusub oo mustaqbalka aad iyo aad ma garanaysaa ay waxa weey isbedel u sameyn doona dad waxaa jira Bitcoin intii loo soo bandhigay khasaaray ana kowka intii la isoo bandhigay baan diiday maanta dhaxdan farta ka qaniinaya marka qof kasto doonaya inaan u furo ama aan u furay muuqaalkan si fiican u dhageysto nimayahow wixii loo gaaro 31 December 31 December wixii loo gaaro suuqan aad hadda bilaashka ku helaysaan aan bilaashka idinku furayo ee aan lacagta idinka qaadin wuu istaagi doonaa wixii loo gaaro 1 January lacaga bixinay 1 January 2025 markaad rabto inaad 5 xabo Bitcoin waxaan ka wadaa Bitcoin gadato you have to pay lacaga bixin doontaa teeda kale dadka aan u furay ee 2 xabo haysta 3 xabo haysta 5 xabo haysta ama 10 xabo haysta ama dadka qaar dadaalay baa jira ma sha Allah nin dhalinyaro ah oo aan u furay 14 casho ka hor baan u furay waxaan u furay ma ya 15 casho qiyaastii waa baan u furay hadda wuxuu haystaa 44 xabo reason kama taqaanaan dad buu u furay dadka uu furay waa dad document haysta waa teeda kale nimayahow waxyaalaha nacasnimada inta iska deysaan oo kibirka iyo isla weyniga iyo magarsa dhaqan xumada inta iska deysaan waxa la idin sheega qaata waxbaad qofka u sheegaysaa waad ixtiraamaysaa waqti baad ku bixinaysaa bilaash baad wax ugu sameynaysaa aniga dadka aan u furay 100 kore u dhaafayaan hase ahaato ma garanaysaa waxa weeye wixii aad kala dardaarantay wixii aad u sheegtay energy aad ku bixisay wuu sahlanaya ala qof aniga waxaan ku bixiyaa 40 daqiiqo ala qof imagine marka waxaad u furtay 100 qof qofkiiba waxaad ku bixisay 40 daqiiqo waa qofka aadka wax u fahansan ee aadka jawigiisu uu ka yahay internet fiican haysta baad 40 daqiiqo ugu furaysaa dadka qaar waxa jiraan internet haysanin oo internetkoodu uu daciif yahay qaar waxa jira iyagoo fuqara ah teeda kale waxyaalaha cadaabka lagu muto waxa kamid ah faqiir mustakabiir inaad adoo sabool isla weynaato ma fiicna adoo sabool ilaahay waxba ku siinin oo futaada buuhood ka muuqato oo allaha allayo halugaad ku taagan tahay oo ilaahow meesha iga wad ku jirto oo ayaan ku caawinayaa waxaan kugu caawinayaa inaan Pi Network ku furo mustaqbalka dadka aan la jaan qaado aad wax barato aad wax raadiso qofka waad la hadlaysaa waxa leedahay energy-ga aan kugu beerdareenayo khasaarin ka faa'iideyso hayuu kulay bartiisa kama sii qaadayo Pi Network markastana waan ku soo celceliyaa mustaqbalka wax far badan buu ka bedeli doonaa sida la qiyaasayo mustaqbalka 2 sano kadib ama sanad kadib aan niraahno wuxuu gaarayaa $314,000 buu gaarayaa waa sanad kadib ama 12 biloodna soo aadan gudahooda ayuu wuxuu dhaafi doonaa $200,000 buu dhaafi doonaa haye sanadka cusub 2025 lacag fiican buu ku soo baxayaa warbaahintu waxay sheegaysaa inuu 300 iyo shajab dheeraad ah xabadii ay ku soo baxayso ilaa 400 ilaa 500 kun gaar way ku soo baxaysaa Elon Musk iyo dadkii magarsa Donald Trump tijaarta adduunka company-gan ku jira waxbaan ku sheegaynaa fahmi maysid waxbaan ku sharaxnaa waxaad kala fahmaysaa ma jirto waanu ku caawinanaa inaan ku caawiyaan isku dayo waxbaan ku sharax explanation energy waan ku sameeynaa mining ka taabo dad waxa jiraan energy ku bixiya maalin walba waa waca haye ma sameysay qaarkood meesha ka shaqeeyana ugu tagaa qaarkood waxa weeye waa iska mahsan yihiin qaar waxa laga yaabaa in habeenkii saqbarkii aan waco aniga xooleygu ma siinaysa ima aadan dhalin adiga hooyadii matid aabahay matid Soomaalnimo ku caawinaya marna waa qabyaalad iyo qurun iyo hawiyi daarad markaan ka hadlayno iyo dir iyo qabyaaladii markaan ka hadlayno marna waa qofka markaad caawinaysid qof kasta aan u furayo mid dal joogayo mid daba joogaba qof aan $1 weydiiyay kuma jiro qof $20 igu siiyo mahadsan walaalkay $20 qaaday dhahay ma jirto mana ka rabo laakiin waxa kaliya idin ka rabaa waxay tahay inaad document haysataan please waa idin bariya ana idin bariya isku day documentigiina inaad diyaarsataan isku day inaad mining ka sameysaan aniga waxba kaama faa'iiday markastaad meesha yaraan ku yiri taabato mining 4 saac hal mar haddaan caawa 5 saac habeenimo ku sameeyay habeen walba 5 saac habeenimo laga rabaa maalinkii dhan darahaaga qabso
وريا إسلام اللي هي اللي وردت كان حنوصل معايا تذا كلا وحيالان كلها يا وحى كمدا ناق باكو سوا عيسى أما ميد باكو سوا عيه وحكوا له أنا وحكوا يدينا ها دوكمنت ميستي محاسمينا باسبور هبرتي بكفر كرا أنا هبرتها مين قبا أنا محاجة قال أنا هبرتها أنا هذا إيه ميد I need your documents وين هايستا دوكمنتي جاي أي ما يا تقبرت ولا شيء أنا ربا أنا يقفرت ولا الكي وكلي ورأديك الناس نمدا ما يسكديسين قرمرت أنا هرمر قرت ولا شيء يا هبرتي يا كوجرت ووري قال لسنا سفيري العقد ما نقلنا ما العقد ما قلنا بلا شوي حتى أنا جالس أكسينا وكجف إذا كيف هذا كمل لفن وأبدا أصلا بيتر هذا وقوي بيرادر وحوا مقرن ساي ولا دغح دحيد waxa la dhagax dixid toojis iyo taabasho waa isugu mid Soomaalidu waxaan kula yaabo waxa kamid ah isagoo jaahil oo isla weyn yahay nimayo waxa ka faa'iideysta mustaqbal fiican uu leeyahay mining ka taabo hadii aad doonayso inaan ku furo muuqaalkan gabagabadiisa aan maraya hadii aad doonayso inaan ku furo waxaan rabaa 20 casho ina soo aadan ilaa 15 casho ina soo aadan waxaan rabaa inaan qaabilo 40 qof 50 qof ku dhawaad 15 casho ina soo aadan waa next 15 days oo ka bilaabanaysa bari oo afrad 5 December ilaa 25 December dadaan u furi doona dadka waan qaabili doona waa imisa how many days way waa 15 days way 15 days 15 casho waxaan rabaa inaan u sameeyo ugu yaraan 50 qof aan ku saacido energy-ga ku bixiyo sidee ila soo xiriiraysa halkay igala soo xiriiraysa wax kala sameeynin TikTok-gaygan ilaa waxaan idin ku yiri Telegram-ka korbu saaran yahay Telegram-ka lambarka inta ku dhufataan iga soo waca qaarkiin haddii aydan sameyn karin lambarkaaga anaa kula soo xiriirayee kaliya waxa sameeyay luuqa ii soo dhig magacaaga saddexna ii soo qor oo baasaboorka ugu qoran xagee kale laga rabo inaad joogto Nairobi waa inaad joogtaa haddaa Soomaali joogto aday ku taala kuma ku rabi adiga I don't need inaan ku saaf gareeyo Soomaali dadka jooga one stop grey reason-kan uu stop grey waxa waaye khasaaradooda badan waxbaad u sheegaysaa waxbaad fahansiinaysaa maanta dhan uu ka malafan yahay waa xad rabtaa inaad caawiso haye inuu ku maqla mar marka qof kasta oo Soomaali joogo waan istaajiyay because dadka Soomaali joogo waxaan ugu talagalnay 100 iyo ma zaada qof aniga yaraan saaxiibanaha 120 qof oo Soomaali joogaan u furnay marka jaaniskii Soomaaliya uu soo xidhmay hadda waxaan uga faa'iideynaynaa dhalinyarada Nairobi joogta ama passport Soomaali haysta ama Kenyan ama whatever documents oo legit ama Ethiopian ama English ama Shiinees hadaa haysid waxa waaye oo ku furaya laakiin Nairobi wayna joogtaa hadaa gaarisa joogtid ama Kenya nawaaxigeeda it's okay wax weyn problem ma lahan waa laga saacidi karaa laakiin bishardi waa inaa haystaa documents waa inaa haystaa 15 casho gudahood igula soo xiriir muuqaalkan mar dambe inaan idinku canaantay iga suginina dantiina idinku canaanay aniga iimaydan dhalin waxa sameeysan anoo lacag ka qaadin oo fees billahi kugu sameeynayo oo ku dhahay sida Suudaan haddana inaa email-aysato sida Luubaanti aqli ma galayso iskuna daya inaad mining ka sameeysan waa maxay mining-ku mining-ku waa falaarta yar halkan aan soo dhigayba falaartaas waa inaad sameeysan falaarta arrowgaas waa inaad ku dhufataa haddaan caawa 5 saac ku sameeyay habeen kasta 5 saac waa inaad taabataa haddii aan ku sameeyo 7 saac duhurnimo maalin kasta 7 saac duhurnimo waa inaad alamka ku xirataa kuwa i wareeriyay waqtiga iga qaaday waxbana ma qabsanayaan ka waran 120 qof oo furtay 30 qof kaliya mining-ka sameeynaysa 30 kaana waa 10 aad canaanatay 5 aad bariday 5 aad wacdi u daartay iyo 5 aad hees jacayl u daartay ku tir walaalayaalow ay 30 kaas sameeynayso dad waliga dad ma isla raadisay qof waliga mustaqbalkiisa ma la raadisay ya ma fiicna waxyaalaha qaar kood dhaqan xumada ay ka mid tahay iska daaya jahliga hal mining gareeyo hal laga faa'iideysto Allahumma al balaqto waxaan kale idinku soo gabagabeynayaa niman yahow 2025 January meeshii loo gaaro halkii xabo waxa la qiyaasayaa inay noqoto $314 way ka badan kartaa oo ilaa 500 kun bay gaaraysaa wayna ka yaraan kartaa laakiin waa $50 iyo wixii ka badan bay noqonaysaa halkii xabo marka hadda iyadoo aan la generate gareyn oo aysan suuqa soo galin labada isbuuc ee la soo dhaafay $100 baa lagu kala iibsanay halkii xabo anigu wiil waxaan garanayaa 1000 xabo haystay uu shiiday halkii xabo $120 bay ka siisteen kuwo ay teeda kale scammers wax la yiraahdaa jira scammers waa taqaana Soomaha linkiga noo soo dir hadii lagu dhahaa soo dirin maxay isaga gadaysaa baashan lacag badan ay ku noqonaysaa labada sanadna soo aadana waxay noqonaysaa san idin sheegayba $314,159 geeska halkaas rabaan inay gaadhaan Bitcoin baa inta aniga la keenay baan diiday doqonnimada iska dhaaf nacasnimada iska dhaaf